dhakhtarka kaliya bukaankiisa cuna dhakhtarkee waay Goryaan waay ya Goryaan 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 dhakhtar miya goryaan kama dhakhtar Goryaan waay ni aqoon adaniyo Goryaan inta ka baratniyo suudan waliga ma tagsi iskidee ilaa admi nin weyn tahay ma wax ma barin miya wax ma barin laakiin waa isku dayday miya geedka ugu dheer adduunka intuu ku yaala afgooyo ku yaala afgooyo ku yaala wallahi ni khatar tahay laakiin su'aasha ma ka jawaabin oo bukaankiisa cuna dhakhtarkee waa dhakhtarkaas ninka xaaskiisa waay ninka xaaskiisa abu ni khatar tahay niyo laakiin su'aashaad ka jawaabta qalad waa shukaansigayga laba bilood free waay ay gabartadooda baan u sheegay ay diyaar waay waa mar kale iyo barnaamij kale oo su'aalo weydiin ah oo aan su'aalo ku weydiinano dadka ku nool degmada Walaweyn iyadoo shirkadda Somtal ay ugu tala gashay dadka halkan ku nool ciddii su'aalahaasi garatay in markaas ay ku guuleysto simikaarka Somtal ay ku jirto 10 GB oo data internet oo qofka ku filan bisha iyo inta ka dhiman barnaamijka baabala ayaa ila daadino dadka su'aalaha weydiin doono soo dhaw muqbahiya STV ku soo dhaw bal ka waran Somtal fursadda ay siisay dadka reer Walaweyn sharafi karaam waxa waaye warbaahinta iyo inta ku xiran iyo dadka barnaamijka daadiinaya waa salaama waxaa sharafno shirkadda Somtel waxay noqotay shirkadda ugu horeysa degmada Walaweyn ka qayb qaadato barnaamij noocan ama fursadan ay u fidiso dhalinyarada degmada ku nool marka waa ugu mahad celinaynaa su'aashaasna waxaan aan rajaynaa reer Walaweyn inay aad iyo aad ugu faa'iideysan doonaan kaararkaasna aadan wax la noqon doonin insha Allah reer Walaweyn waxaan ku ogahay aqoonta inay waxbarashada meel heer sare ka gaareen kulligooda jaamiciyiin ay yihiin insha Allah maanta inay ka faa'iideystaan aan rajaynaa aad iyo aad waa sidaa sheegtay reer Walaweyn ma lees maqlaa maanta waxaan idin haynaa fursad aad ka faa'iideysan kartiin su'aal lagu weydiinaa bas su'aashaas haddaad ka jawaabtid waxaa helaysaa 10 GB oo simkaar oo Somtel idinku tala gashay reer Walaweyn khaas ahaan loogu tala galay su'aashaas ninkii ka jawaabi karo intuu imaanaa waa weydiinayna haddaad ka jawaabto waa lagu wareejinaa waxaan ku weydiinaynaa magaca noo sheeg horta magacay maxamed isaaq lama joojiya maxamed isaaq lama joojiya waxaan ku weydiinaa waxaad ku nooshahay degmada Walaweyn ku nooshahay aad iyo aad waxaan rabaa 6 su'aalood 6 number aan ku siinaa waa fahmay 6 number hal number aad ka baxsanay su'aasha kugu soo aadan ku weydiinaa diyaar waay 1 ilaa 6 hal number ka baxso 6 number 6 okay waxaad sheegtaa caasimadda labaad ee waddanka Soomaaliya ama Soomaaliya caasimadeeda labaad magaceeda sheeg caasimadda labaad waddanka Soomaaliya magaceeda Hargeysa waay igu soo celi Hargeysa waay mubta isku hubi warkaas Hargeysa waay waa ku adkaysan isku day waay isku day ma ku adkaysay ama aniga ku guul dareysataa maya Hargeysa waay warnimayo ninkan waa ka jawaab loo saxabtumo يا سلام عليك أنا إذن داير دافت إني أخوياها يهين أنا هو تاس وحكو قوليستي شركة السومتل أي كوكو تلقشي 10 جي بي أو إنترنت له أي كوكو تلقشي إن تقادتت أنا أعرف ويش قبصه نيك أقولي أي كوكو قوليستي سؤاشان وحاول وحن جعليسان لا إن صعب كلا لوجو عليو إلى وحكمت ياي وحكمت أخويانا ذا دقمة Walaweyn وحكمت يا مقطع مركني كان وحو إذا مثلا نن أخويان واي شرفي كرام أدي هذا وما سنتهاي وأنك أتخاذتين وقوات كيس تحت شكل ينقولي أدي هذا وما سنتهاي أن شركة السومتل أو عنكو إنترنت حوارة صار له أو حيمانت دقمة Walaweyn أو فائدين بتاع لنا هذا سؤالوين يدد ويديني سؤالوين كصدات كجوابتد أول مرة نكسين سا وحكارة وكو إلا إلح نمبر 5 sideed كو إلا مايا كو إلا إيشان نمبر 5 شنا هستا أنا كيواي نمبر شنا هستا نمبر شنا ها واي هاي نمبر شنا هاي ستا اوكي waxaad sheegtaa geedka ugu dheer adduunka meesha uu ku yaalo ama meesha uu ku yaala laga rabaa
geedka ugu dheer adduunka afkooyuu ku yaalaa gari waay yaa afkooyuu ku yaalaa igu soo celi afkooyuu ku yaalaa iyo nin professor oo egtay aqoon-yahane aqoon-yahan ma yaani waxaa dood ka dhigadi afkooyuu ku yaalaa su-aasha ilafahaya geedka ugu dheer adduunka intuu ku yaalaa afkooyuu ku yaalaa afkooy ma ku yaalaa wallahi nin khatar tahay laakiin su-aasha ma ka jawaabin su-aasha ninkan uu ka jawaabi waayey waxay ahayd geedka ugu dheer adduunka intuu ku yaalaa dhulka igu soo celi geedka ugu dheer adduunka intuu ku yaalaa dhulka niyo iskowniyo nin weynaa tahay Dhulka waxay geeya. weyn meesha dhulka geeya yaa dhulka geeya geedka ma dhulka ku yaalo usacabtuma runtiisi waay usacabtuma ileen geed walboo baxaa intuu ku yaalaa dhulkuu ku yaalaa sidaa daraaddeed ninkan wuxuu ku guulaystay shirkadda somtel waxay ugu tala gashay inay abaalmariso edhikaar oo 10 GB ku jirto oo maaragtay oo uu faa'iidaysan karo bil ilaa 2 bil marka waxaad naga guddoontaa edhikaarkaas naga guddoon su-aasha aad ka jawaabtay su-aal saxay ahayd shirkadda somtel say u aragtaa way fiican tahay kulay yaa way fiican tahay weligaa ma kuma qashorta iyadoo deegaankan barnaamijkan qabanayso May. waa markuu ugu horeyso hadda waxaa kuu toosi kara mataqaanaa haweenkii oo dhan shukaansigaaga caado ah yaa aad iyo aad waa mahadsan tahay su-aashaad ka jawaabtay waa ku mahadsan tahay ilaa iyo 4 kow ilaa iyo 4 nambar qabso number 3 haystaa nambar 3 haystaa waxaa ka jawaabtaa waxaa lagaa rabaa daaqadda guriga waqtiyada la xiro sheeg waqtiga la xiro daaqadda guriga ku taalo waqtiga la xiro daaqadiina waqtiga la xiro daaqateena haa gurigiina dariisho ma laho sax waa dariishada gurigiina ku taalo goormee la xiraa haddii qayb roobku aadanta xillida roobka la xiraa maxaa waay haddii xilli roob ay tahay roobkan ku aadanta xillida roobka la xiraa warniyo nin khataraa tahay niyo wallah khataraa tahay wallahi haweenkiina waa la xiri karaa caado habeenkiina waa la xiri waa karaa la xiri karaa haddii daaqad kor ay jirta lama xiraayo waa macnaha leera kaaga soo galamo iskaleersay miya haa haa nin horta nin oo aqoon-yahanaa u egtaa maasha allah laakiin su-aasha aad ka jawaabtay khalad waa aad iyo aad su-aasha aan weydiinay isku dayaa hadda waxay ahayd goormee daaqadda la xiraa ama dariishadda wakhtigee la xiraa waa ka isku day uu sameeyey laakiin jawaabtiisu waxay ahayd mid khalad eh waxaa soo istaagay nin kale oo iska dhigaya kolley inuu su-aashaas yaqaano laakiin waa arki doonnaa waxaan ku weydiinaa daaqadda guriga goormee la xiraa daaqadda guriga ku taala ama tiina ama guri walba aado goormee la xiraa markii furan yaa markii furanto si fiican ima qalsii markii furanto markay furan tahay nin weynaa tahay maa ka fiirsatay su-aashaan markii furanto yaa markii furanto markay furan tahay su-aashaas sax waa haloo sacabtumo sababtoo ah daaqadda goormee la xiraa markii lagu dhaho daaqad aan furnayn ma la xiraa ma ogtahay daaqadda waxaa la xiraa markay furan tahay sidaa darteeda ninkan su-aasha aan weydiinay jawaabta uu ka bixiyey waa sax shirkadda somtel waxay kugu tala gashay 10 GB oo internet ah 2 bilood waa isticmaali kartaa shukaansigaaga eelkaaga wixii dibadda jiro waa kala xiriiri kartaa okay shirkadda somtel maxaa leedahay marka aad iyo aad u ambalyeynaa shirkad Samtel haye weligiina kolley shirkad oo saan oo kale lafab internet ku jiro idin keentay weli hore mu dhicin maho ma haye waa ku faraxsanahay maanta shirkad Samtel oo noo keentay oo simikaar oo 10 GB ah haye oo maantana degmada Walaweyn noo keentay waa ku faraxsanahay sharaf iyo karaamo ani sidaan aaminsanahay degmada Walaweyn shirkadda somtel waxaan ka cabsanaa in lafafka ay ka dhamaystaan ka cabsanaa sababtoo reer Walaweyn ayagoo dhan aqoon-yahan waay waxaa soo haray 2 nambar soo haray 1 iyo 2 nambar qabso 2 ma qabsatay sheeg xayawaanka oo dhiigiisa buluug yahay xayawaan oo dhiigiisa buluug eh sheeg ya Ya, عدادي hak. ركعة سؤاشا أن كويديني جامعة ماك صباحدي سكول ما دقتي لكن سؤاشا سيكو فانتي سيكو فانتي يا كل شيء
هذا بسؤال عن كويديني خلط وامرك إن شاء الله ياك فايدة سنايو سؤال عن ويديني عنو جيرا أدي هذا وما تسني اسكتي وسمي جيسن وقف كادو أنت أنا قف كوين أو ده سؤال أنا كجوابه نركوا أو جيسن ماله وعن ويديني أنا عنو غير سؤال عن ويديني وعن ويديني حيوانك أو ديجيس بلوك إيه حيوان أو حجره هداد دشيت أما ديجيس هداد دركت ديجيس بلوك واي حيوان كاس مقعد الشك وحواي كاس دا اسكو دا وبك واي يا وبك واي مع هذه وبك وبك حيوان كاس أنا ولي مغلن وبك يا ما كلمة ليه ما عسى ما أنا ما كسر وبقص يا وبك والله أنا مغلن مقعس هدي ما كلو تغانت الشك ما عسى وبك يا شيكر معاوي كان أو كلا رضا بدنا ما يسؤال أتك جوابت غلط وا يا كلو اسكت حيوان وحجره هدي أما ديل أما ديجيس هدي أركتد أو ديجيس أو بلوك يا شيكر سؤال شاس اسكت حيوانك أو ديجيس بلوك أو ياي ما شيكرتها اسكو ديا هاي waxaa waaye xayawaanka loo yaqaan carcarada hal mar aan musbal su'aasha aan ku weydiinay si fiican isaga hubi xayawaan markii dhiigiisa oo buluug yahay ama hala dilo ama aad markaad aragtid oo dhiigiisa buluug yahay maxaa dhahday carcaro carcaro nin weyn aad tahay ma wax ma barin miya wax ma barin laakiin waa isku dayay oo isku dayday miya ninkan su'aasha aan weydiinay oo ka jawaabay وسؤال صح يا لو صعبته صوبته عارضة هاتي كدبنا هدلنا يا ذيكو إذا واحد قالين هدلنا عار دمت كرادية عارضة إيجاذا بلوكوا سيدا درت هذا شركة سونتيل وحقوق تلقى شيء شركة سونتيل لفتاس أو 8 جي بي كوجرتو إن شاء الله معنا جينا إن تكيف فايدة شركة سونتيل ووليجا دقمة والمين أنك سمين برنامج كم حال هذا والله أرتو حالة شركة سومتيل هذا وماتنتين وحامات دقمة أو قبتين برنامج أو رنتي مدن كفايديسي صوب بندقة أقون يو وحيلر نجردا وحو ترايو سيبا أنا نجرا مركان هاي عدو حدا أنكو جولستي 8 جي بي سيم كارو كجرو 8 جي بي إنترنت مع الكو هذا الكذا كل سان فيلا شو كان سيجي لو بلود فري واي هاي قبرت دو بينها وشين هاي ديار هل سؤال أنا أرت سؤال ودم بيسوا ياك جوابه عادون شيكتا دكتورك كليه بكان كي سعونا دكتور كيوا قريان واي يا قريان قريان دكتور ميها قريان كمان دكتور قريان واي يا أخويا أنا دانيو قريان أنت كبرتنيو السودان ولي قامت اسكدي لي ادوي يا اما ان صح انغتو ام كلمه انا فارسي انغتو واسكو دايدي لي أظن وعبرنن هذا بالسؤال أنت جوابتي غلط وا يا كفايدة سنة وعال سويدينا دكتورك كليه أو بكان كي سعونا دكتور كيوا دكتور كاس ninka caaskiis waay نينك عايز كيسا أبو نو خطرة ثانية لكن سؤال شاتك جوابت غلط وا أيوة عنك ويدينا متى غانا دكتورك كليه بكان كي سعونه أما دكتورك كليه نينك أو داوينا عنايو بكان كيس عم نك داوينا دكتورك كليه بكان كي سعونه isku day su'aashaas waxay noqonay ninka bukaankiisa daaweynaya دكتورك أو بكان كي سعونه دكتور كيواي دكتور نوعي دكتور وحاجره بكانك أسيق أو داوينا أو هذا عنايا جرو دكتور كاس دكتور نوعي ما فاهم سنت ما كسا قنتي كمتها طبعا فرق فوضى ويديني سؤال شو هذا نقط وحن ويدينينا نكانا خلين جابك أو جرو أو إجمانت إن بروفيسور إن شاء الله إنه كجواب رجينا وحن ويدينينا أما شركة الصمت الفرصة وعيكون سيسي سؤال شان ويدين هذا كجوابت إن أول مرة أتخاذت وحالو ويديي دكتورك كليه بكان كي سعونا ما تقانا مشاي كرتا أيه دكتورك حنانada xoolaha
yaa dhakhtarka xanaanada xoolaha barnaamijyo suga bandhigaan nin damiina yimid walaalo waxaan ku weydiinaynaa dhakhtarka kaliya bukaankiisa cunaa la iska rabaa dhakhtarka daaweeya xoolaha xanaanada dhakhtarka xanaanada xoolaha micnaha xoolaha dhakhtarka daaweynaya ma hubtaa yaa dhakhtarka xoolaha daaweynaya iska nasiibsatay markuu daaweey marka dib cunaayo marka ha ma ku nasiibsatay mise waa iska macnaha waa taqaanaa waa qaana yaa waa qaana dhalinyaro waxaa idin leeyahay ninkan su-aasha aan weydiinay sax miya masqalad wey oo ay idagtee yaa maxay idinla muuqataa wuxuu noqday ninka su-aasha ugu adag ka jawaabay uu noqday ninkan saan dareemayna waa nin arday ah sax waa sax dhakhtarka keliya ee bukaankiisa cunaa waa dhakhtarka xoolaha sababtoo ah dhakhtarka xoolaha eriga markuu daaweeyo berina maxuu cunaa isla erigiiuu cunaa maaho marka ninkan su-aasha uu ka jawaabay waa su'aal sax ah shirkadda somtel waxay kugu tala gashay kaabo laftaan sacabka aabe waaw niyow waxaa lagugu tala galay laftaan oo somtel ay kugu tala gashay sonte iga qabso 10 GB ku jirto 2 bil iyo bara isticmaali kartaa shirkadda somtel maxaad leedahay barnaamij noocan weligeed inta ma ka samaysan ma la kulanteen maya ma la kulmin maanta igu horeyso haye marka nin oo kuley waxaan u malaynaa ardayaa tahay sax su-aashan aad iyo aad u adkeed aad iyo aad aan kugu mahad celinaynaa su-aashaad ka jawaabtu waa ku mahadsan tahay adaa mahadsan aad iyo aad waxaan ku faraxsannahay maanta su'aalaha aan weydiinay dhallinyarada reer Wanlaweyn annagoo ka cabsi qabna inay ka jawaabi waayaan ama simkaarada somtel oo ugu soo tala gashay sideeda inaan u celino laakiin reer Wanlaweyn waxay ku soo baxeen dad aqoon-yahano ah dad wax barteen dad wax fahmaayo sharaf iyo karaama inta su'aal aan weydiinay si sax ah ugu jawaabeen waana ku guuleysteen barnaamijka xiga intaan ka gaari doono insha Allah la socod wacan maalmaha aan joogno Wanlaweyn wax badan aan samayn doonaa waa mahadsantihiin reer Wanlaweyn